السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo tiknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan wanaagsan daawadayaashana qiimaha iyo qaayaha nagamada meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa shortcutka ugu caansan ee uu leeyahay Microsoft Word noocyadiisa kala duwan. Control plus Shift plus right arrow طبعا وإن لو ضغطت Control iyo Shift iyo falaarta midig. طبعا أمركان waxa uu fulinayaa in cursor-kaaga halka uu yaalo qoolada ka jira dhanka midig oo dhan ama qayb ka mid inta aad doorato lagu saaro highlight ama lagu midabeeyo. Tusaale cursor-kaygu iminka waxa uu yaalaa inta u dhaxaysa soo iyo koobaya. Markaan la qabto Shift iyo Control iyo falaarta midig maxaa dhacaya? طبعا waad aragtaa iminka waxa la calaameynayaa qoraalka jira dhanka midig oo dhan ilaa inta ay gacanteedu istaagto ayaan shaqadu socon doontaa. Control plus Shift plus left arrow-na طبعا waa in la wada qabto Control iyo Shift iyo falaarta bidix waa in cursor-kaaga halka uu yaalo qoraalada ka jira dhanka bidix oo dhan ama qayb ka mid ah aad calaamaysato isla markaana aad doorato. tusaale iminka cursor-kayga waxa uu yaalaa adeegsanayo iyo amaro labadaas ay dhexdooda marka waxaan hamis la qabanayaa Control iyo Shift iyo left arrow waxaana dhici doonta inuu cursor-kayga u dhaqaaqo dhanka bidix isla markaana uu ii saaro erayo badan highlight gaar ahaan erayada ka jira dhanka bidix. Control plus Shift plus C طبعا أمركان حوجا waxa uu shabahaa marka si loo fiiriyo Control plus C oo ahayd copy-na طبعا waxa uu ahaa erayada qaar la calaameeyay in uu copy-yeeyo isla markaana uu ku qaado balse kan wuxuu ka duwan yahay copy-ga caadiga ahaa kan kaliya waxa uu qaadi doonaa farta qaabka u taalo haddii ay farta tahay mid jiifta ama haddii qoraalka fartiisu ay ka duwan tahay farta qoraalada kale. tusaale waxaan rabaa sadarkan hore inaan u sameeyo far gaara tusaale waxaan ka dhigay fartiisa Algerian kadib waxaan hamar wada taabanayaa Control plus Shift plus C. طبعا hadda kaliya waxa la ii koobiyay qoraalkaas kore qaabka u yaalo balse lama qaadan qoraalka waxa uu yahay. Control plus Shift plus V طبعا amarkan shaqadiisu waxa ay tahay in qoraalka iminka aan soo koobiyay qaabkeeda ama formattingkeeda aan markaan dul saarno eray kale. tusaale eraygan shortcut ayaan rabaa inaan u ekaysiiyo farta burburan ee qaybta kore jirta. marka hore shortcut ayaan saaranayaa highlight kadib waxaan taabanayaa keyboardka Control plus Shift plus V. طبعا qaabka kalimadda shortcut iminka waxay wakaatay qaabka uu yaalo sadarka koowaad. Control plus F10 Control plus F10 shaqadeedu waxa ay tahay waa restore iyo maximize. طبعا warqadan documentigan Word-ka ah in la yareeyo cabirkeeda iyo in la weyneeyo. tusaale Control plus F10 ayaan taabtay waad aragtaa warqad documentigan inuu aad u yaraaday balse haddii aad mar kale taabto Control plus F10 warqadda cabirkeedii hore ayay dib ugu soo laabanaysaa. Control plus F12 amarkan طبعا waa in la soo furo documenti ku jira computerka. tusaale markii aan taabto Control plus F2 maxaa dhacayo waxa ku soo baxaya طبعا open kadib waxaad soo furi doontaa documenti ka mid documentida kugu jira computerka. tusaale mid ka mid haddii aan tijaabiyo sidan ayuu u soo furmayaa. okay iska xir. Control plus F1 طبعا amarkan waxa uu soo muujinaysa markaana uu qarinayaa menu barka documentigan. طبعا haddii aan taabto menu barka ayaa qarsoomaya sidoo kale haddii aan mar kale taabtana menu barka ayaa soo muuqan doona. Control plus F2 طبعا amarkan wuxuu la mid yahay amarkii hore ee Control B oo طبعا printerka ahaa
haddii aad taabatana waxaa ku soo bixi doona qaybta printerka iyo faahfaahinta guud ee ku saabsan warqadda la rabo in la daabaco. Control plus F4 ama F4 oo kaliya dabcan amarkan waxa ay shaqadiisu tahay inay xirto dukumentiga imika noo shaqeynaya ee furan. tusaale waxaan rabaa dukumentigan inaan xiro, kaliya waxaan taabanayaa amarka Control plus F4 ama kaliya F4. kadib maxaa dhici doona, waxaa la ii soo bandhigay warqadda inaan rabo inaan keydiyo dukumentigan kahor inta aanan xirin ka hor. dabcan habkaas ayuuna ku shaqeeyaa amarkan, wuxuuna u shaqeeyaa habka close oo kale. fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka subscribe inoo saar, muuqaalkana like inoo dheh, waayo like-tu waxay nagu dhiirigelinaysaa dadaalkeenna, waxayna naga caawinaysaa in muuqaalku sii gaaro asxaab badan oo baahi qabta kana faa'iidaysan doonta insha Allah. mahadsanid in ka badan milyuun jeer. Control plus F9 dabcan amarkan shaqadiisu waxay tahay inuu ku soo bandhigo laba bracket amaba laba qoys. Control O dabcan amarkan shaqadiisu waxa ay tahay inuu ku soo furo dukumenti Word ah oo ku jira kombiyuutarkaaga. dabcan wuxuu la mid yahay amarkii ahaa Control plus F12. tusaale Control O taabo, kadib waxaa soo furtaa oo aad soo kicisaa mid ka mid ah dukumentiyada Word-ka ah ee ku jira kombiyuutarkaaga. Control plus A dabcan shaqadiisu waxa ay tahay inuu ku calaameeyo dhammaan dukumentigaaga oo dhan qoraaladiisa. tusaale Control A marka aan maxaa dhacayo, waxa imika loo calaameeyay isla markaana midab buluugana loo saaray dukumentigeena oo dhan qoraalka ka koobnaa. Control B dabcan Control B waa in farta laga dhigo bold isla markaana laga dhigo mid buuran midabkeeduna tiq yahay ama uu madowga ku badan yahay. Control plus I dabcan waa amar qoraalka looga dhigay mid jiifa isla markaana italic ah. tusaale inta markaa calaameeyo waxaan taabanayaa Control I, kadibna waad aragtaa qoraalka imika inuu isbedelo xogaana uu janjeero dhanka bidix. Control plus equal dabcan amarkan waa in qoraalka qayb ka mid ah laga dhiga mid base ama sal u ah qoraalka intiisa kale. tusaale habkan waxa aad u isticmaal xisaabta, gaar ahaan qaybta loo yaqaan logarithms oo base ama sal leh. sidoo kale waxa aad u isticmaalo chemistry-ga, waasna sidoo kale isku dhisidiisa ay qaar ka mid ah leeyihiin bases ama sal. marka numberka aad rabto inaad ka dhigto base ayaad calaameynaysaa, kadibna waxaad taabanaysaa shift iyo equal, kadibna sidaas ayuu ku soo bixi doonaa. ama waxaan rabnaa inaan sameyno 2 oo base ah, gaar ahaan hydrogen oo 2 ah iyo oxygen oo 1 ah marka ay sameynayaan biyaha. dabcan 2dana waxay base u noqonaysaa hydrogenka, marka 2da calaamad saar, kadibna waxaad taabataa Control iyo equal. Control plus shift plus dabcan waa inaad isla qabato Control shift iyo calaamada ku darta, waxaa ku samaysmi doona jibaarane. habkan waxaad u isticmaalo xisaabta, gaar ahaan ciwaanka loo yaqaano indices oo ah jibaaranayaal ama loo yaqaano powers. tusaale waxaan rabaa inaan sameeyo x square oo kale, kaliya waxaan qorayaa x2, kadib 2da ayaan saarayaa highlight, kadibna waxaan taabanayaa Control iyo shift iyo plus. sidoo kale waxaan rabaa inaan sameeyo y cubic, kaliya waxaan qorayaa y iyo number 3, kadib number 3 ayaan saarayaa highlight, kadibna waxaan taabanayaa Control shift iyo plus. kadib 3 waxay noqonaysaa jibaar, waxayna ku jibaarmi doontaa y. Control plus R dabcan amarkan waxa uu yahay in qoraalka laga soo bilaabo dhanka midig. habkan waxa aad u isticmaalo dadka Carabiga wax ku qora. waxaan rabaa inaan qoro qoraal Carabi ah, waxaan taabanayaa Alt iyo Shift hamar wada taabo. dabcan waa haddii kombiyuutarkaaga uu ku leeyahay labada luqadood Carabi iyo English. markii aan taabto Control R na cursor-kaygu wuxuu marayaa dhanka midig, kadibna waxaan bilaabayaa qoraalkayga Carabiga ah, wuxuuna u soconayaa dhanka bidix isagoo ka imaanaya dhanka midig. dabcan Control R waxaa lid ku ah Control plus L oo isna ah lefty. dabcan haddii cursor-kaaga dhanka midig uu jiro si aad bidix u maato, kaliya waxaad taabanaysaa Control L, kadibna qoraalkaagu wuxuu u soo guurayaa dhanka bidix. tusaale
qoraal markii aan qoro haddii aan control L taabto qoraalkaas wuxuu aadayaa dhanka bidix haddii aan taabto control plus R na qoraalkaas wuxuu aadayaa dhanka midig oo imika waxaan taabto control R qoraalkaygu wuxuu aaday dhanka midig balse haddii aan taabto control plus L qoraalkaygu wuxuu soo aadayaa dhanka bidix control plus D dabcan amarkan waxa uu ku soo bandhigayaa sanduuq weyn oo ku saabsan farta dukumentigaaga kaasoo ku tusinaya farta magaceeda qaabkeeda iyo cabirkeedaba control plus E dabcan waa amar qoraalkaaga geynaya qaybta dhexe ee dukumentiga markii aad taabato control plus E qoraalkaaga dhexda ayuu tagi doonaa sidan oo kale inta badan habkan waxaa loo isticmaalaa ciwaanada marka la sameynayo ciwaanka dabcan waxaa la geeyaa bartanka qoraalka waxaan rabaa imika inaan sameeyo cinwaan markii aan cinwaan qoro waxaan taabanayaa amarka control E kadib qoraalkaygu wuxuu aadayaa qaybta dhexe control plus G dabcan amarkan waxa uu yahay inuu ku kaxeeyo qoraalkaaga qayb ka mid ah gaar ahaan qaybta aad dooratay tusaale markii aad taabato control plus G waxaa ku soo baxaya box ama sanduuq kadib boxkan dhankiisa bidix waxaa ku yaala go to what dabcan waa meesha aad aadayso haddii aad doonaysa page ka mid ah page uu ka kooban yahay dukumentigaaga ama line ama xariiq ka mid ah marka hore halkaas ayaad dooranaysaa tusaale imika waxaan rabaa inaan doorto page marka page ayaan saaranaya highlight waxaan leeyahay marka page 1 igay halkan waxaan gelinayaa 1 kadibna waxaan leeyahay go to dabcan imika waxaa la geeyay page 1 sida ka muuqata halkaanba haddii aan 2 galiyo sidoo kalena waxaa dib lagu celinayaa page ka yimaado oo ah page 2 sidoo kale markan waxaan leenahay line tijaabi okay ama sadar ka mid sadarrada uu ka kooban yahay qoraalkeena tusaale waxaan leeyahay waxaad dhigaysaa line-ka ugu horeeya qoraalkayga waa aragtay dib waxaa la geeyay line-ka koowaad oo ciwaan ah sidoo kale waxaan leeyahay waxaad dhigaysaa line-ka labaatanaad ee qoraalkayga kadib waa kan waxaa la keenay control plus shift plus right arrow control plus H dabcan qaybtanna waa in erey ka mid ah ereyada dukumentigaaga aad raadiso isla markaana aad bedesho qoraalkiisa tusaale waxaan rabaa inaan bedelo ereyga loo yaqaano cinwaan oo ka mid dukumentigayga waxaan rabaa inaan ku bedelo topic marka hore ereyga ayaan raadinayaa waxaan ku dhufanayaa find text kadib marka la dulgeeyo ereyga waxaan leeyahay replace kadib waxaan leeyahay okay ama iska xir dabcan waana ka imika ereyga cinwaan wal bedelay waxaa loo bedelay topic control plus key dabcan amarkan waa in address ama cinwaan lagu soo daro dukumentigaaga waxaa ku soo furmi doona daaqadan dib qaybtan address waxaad gelinaysaa cinwaanka aad rabto in lagu diiwaan geliyo tusaale waxaan leeyahay wadajir Mogadishu Soomaaliya dabcan waad aragtaa iminka halkan waxaa la soo geliyay address ama linki ka kooban degmo magaalo iyo wadan control plus Q dabcan amarkan hawshiisa waxa ay tahay in qoraalkaaga uu ka baabi'iyo bulletiska ama numberska tusaale iminka intana asaar highlight-ka waxay leeyihiin bullet ama dhibco dhibcahaas markii aan taabto control plus Q way bixi doonaan qoraalkan wuxuu u saka doonaa xoogaa dhanka midig control plus T dabcan amarkan shaqadiisu waxa ay tahay in qoraalka qayb ka mid ah laga saaro warqadan isla markaana loo kaxeeyo dhanka midig loona qariyo tusaale iminka waxaan rabaa sadarka labaad inaan qariyo qoraalkiisa cursor-ka waxaan geynayaa sadarka koowaad kadib waxaan taabanayaa control T dhowr jeer kadib waxaad arkaysaa qoraalka iminka inuu u socdo dhanka midig isla markaan gabi ahaantii uu ka bixi doono warqadan control plus W dabcan amarkan hawshiisa waxa ay tahay in dukumentiga la xiro wuxuuna shabahaa dabcan F4 iyo close dabcan dukumentiga ayaan rabaa inaan xiro marka kaliya waxaan leeyahay control plus W dabcan sidaas ayuuna ku xirmay fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka subscribe inoo saar muuqaalkan like inoo dheh waayo like-tu waxay nagu dhiirigelinaysaa dadaalkeena
waxay naga caawinaysaa in muuqaalku sii gaaro asxaab badan oo baahi qabta kana faa'iidaysan doonta insha allah. mahadsanid in ka badan 1,000,000 jeer.